بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا هنا شرحنا بارت 2 سؤاله أقسام كفوفوك لوضع كونية تضوي طبعا هذا عن كبرون سؤال شكوبة A mixture of sand salt was stirred up with water and filtered as shown the diagram. The diagram كان نظام مغطى وحال اسكو غساي عيد عصبة لها waxa lagu qasay biyo kadibna waa la filter gareeyay marka waxa la yiraahdaa substance was left behind the filter paper marka wuxuu noqonayaa midka ku hara filter paper wuxuu noqonayaa sand ciidii uu noqonayaa substance B was passed through the filter paper. What is the name of that substance gas maxaa la oranayaa salt solution baa la oranayaa waa biyo iyo cusbo isku jira which one dissolves in water salt ma cusbadii mise ciidii mise cusbadii baa biyaha ku milmaday cusbadii baa ku milmatay biyaha B the apparatus below can be used to obtain a pure water from the solution ki la sameeyay baa hal raacin laga sameeyo waxa la pure water laga soo saaro kasi la sameeyay solution ki waxaan ku jira dab baa lagu shiday uumigii baxay condensation baa waxa la marito badan xagana waxa lagu sameeyay condensation oo uumigii la qaboojiyay si biyo isugu bedelaan marka waxa la yiraahdaa what is the purpose of ice cold ice barboskiisa waa maxay inuu uumiga uu ku sameeyo condense so liquid ku bedelo marka barboskiisa waxa weeye to condense the steam. What is the separation method called? Separation kan maxaa loogu yeeraa evaporation lan uumiga biyo waa la evaporate gareeyay marka waxa la yiraahdaa evaporation kuwan kale waa fahmaysan maxaa salt kan xaga maxaa ku soo haray salta ku soo haraysa condensation maxaa la condensation xagee ka dhacaya flask 2 xagaan condensation ka dhacaya evaporation kuna wuxuu ka dhacaya flask 2 kuma ka dhacaya su'aasha labaad the molecular formula of methane maxaa la karaba relative molecular mass baan la karaba si loo xisaabino naqana waxaa la oran jiray molecular weight kaarboonka iyo hydrogen kala isku daraya 16 baa soo baxay percentage ka marka la rabo in la soo saaro percentage composition of hydrogen in methane kana hal noqonaysa waa hydrogen oo 4 ah molecular weight ka hydrogen oo 4 ah iyo total maxaa la yiraahdaa molecular weight ka oo lagu dhiftay 125 buu noqonayaa define kan iska daa waa taariif haga soo jeeda su'aasha b hada u gudubno waxa haysanaa la yiraahdo waxana loo diray determine the molecular formula loo diray molecular formula usoo saarno marka hore waxaan raadinaa empirical formula raadinaa se ku helay ko waxaan raadinaa number of moles maxaa lagu soo helaa maska oo loo qaybshay molecular weight maska haysano oo sodium ka maxay waa 9 molecular weight ka waa maxay waa ama relative atomic mass ka waxa weeye 23 waa isku qiimaysan number of moles baa soo helaysa number of moles ka oxygen waa soo helaysa kadib maxaa raadinaysa waxa la yiraahdo ratio waa maxay waa 1 way ratio marka uu 1 yahay waxa la yiraahdo empirical formula sida noqon empirical formula wuxuu noqonayaa seetan xaga ka muuqata sodium 1 waxa la oran jiray oxygen 1 calculate the molecular formula maxaa lagu helaa molar mass of empirical formula molar mass ka empirical formula oo lagu dhiftay x wuxuu la mid yahay maxaa la oran jiray molar mass of the compound buu la mid yahay marka molar mass of the compound maxaa haysanaa 78 baa haysanaa maxaa naga maqan molecular formula naga maqan waxa la oran noqonaysa molar maxaa la oran jiray molar mass of empirical formula waa intee waa 39 lagu dhiftay x 78 dhinac kasta u qaybi waxana soo baxsan 2 kadib molecular formula maxay la sodium 2 oxygen 2 saas noqonaysa labadan baa ku dhufanaysa xaga ugu dhufanaysa
empirical formuladii baa wax ku dhufanaysaa 2 intaas ku soo baxaysa su-aasha xigta haddaan u gudubno waxa la write the word equation kuwaan iska daa waa simple waa buux meelaha bannaan intaas waxay kuma jirto su-aasha kale waa nafs lahaja gain structure taas buuxinaysa su-aashan kale waa determination iyada lafteeda simple su-aashan kale maxaa la oran jiray use the above reactivity series answer the question which element fire is it وأساسنا magnesium sodium iron كون وانا قانا محل أورنجري anode cathode markii maxaa la oran jiray la sameeyo electrolysis marka la sameeyo iyo la adeegsanayo carbon electrodes maxaa la oran jiray kan wuxuu aadaya cathode ku aadaya kan wuxuu aadaya anode ku aadaya nafs haja xagan kan ka dhacay sidoo kale aan xaggaas ka dhacay su'aasha xigta waxa la use the flowing bone energy for you answer the question marka anagu kuwan adeegsanayna waxa la dhahaa kuwan ka shaqeeya marka maxaa nitrogen waana qana waa intaas tan saddexdaas ku dhacsa marka kaligeed ahayd hydrogen kaligeed ahayd oo lagu dhuftay intaas lagu dhuftay saddex intaana soo baxay intaan oo nitrogen kada lagu dhuftay labadaas iyo saddexdaas wax soo baxay intaas lix ku dhufanaysa hadana si fiican u fahmi doonaa waxaan ku yiri calculate the enthalpy change of the formation ammonia from the nitrogen and hydrogen marka enthalpy change wuxuu leeyahay waa enthalpy change of reactant minus the enthalpy change of product waa kan reactant-gii waa kan oo ah aan la oran jiray nitrogen iyo kan oo ah hydrogen laga jaray product-gii marka markii la kala jarjaro waxaa noo soo baxaysa minus 105 kilojoule per mole baa soo baxaysa iyadana sidaas ku saarnay kan waa definition kan kalena waxa weeye write the chemical equation formation iyadana waa maxay waa hydrogen lagu daray oxygen waxa la mid tahay water bay la mid tahay marka balanced marka laga rabo xagga wax lagu dhufanaya half ku dhufanaysa saa u balance garaysa tan kale waa nafs الحاجة وهذا write the word equation of the reaction takes place reaction isku darsan waa hydrochloric acid iyo magnesium ku daray waxna soo magnesium chloride iyo hydrogen gas oo baxaya marka waxa gaaska baxaya wuxuu noqonayaa hydrogen gas buu noqonayaa marka wasaashu xigta waa gas produced at the end of the reaction xagaas marka gaaska la soo saaray volume soo maxay waa 60 sidoo kale on the above the graph much the gas was produced 2 minutes markuu ahaa gaaska la soo saaray intee volume ku soo waa kan waa 40 asna waxaan soo haray dad saar baan ku dhahay markuu reaction ka bilowday dadku ka saaray waxa how does the rate be compared to ana qanayadana maxaa la dhahay b rate markuu intaan rate inta waa b markuu maray rate inta waxa noqonaya kan loo qaybshay kan buu noqonaya kan loo qaybshay kan baa san ku soo baxay that's rate 24 centimeter cube per second kan waa 2.2 centimeter cube per second kan kale waa definition catalyst-gii maxaa la oran jiray definition isway kan kale waa maxaa ku yiraahday and element that forms -2 ion same electric configuration noqonaya oxygen buu noqonaya kaasna
ka kalena waa aluminium shellkiisa ugu dambeeya maxaa ku jirtay saddexdaas loo isgareynaya sidaas daraadeed wuxuu noqonayaa +3 kan kale electric configuration xorriyaha 15aad anagana phosphorus kan maxaa la oran jiray element common data tetrahedral sameynaya hydrogen plus carbon pyramidal molecule kan hydrogen la sameynayna waa nitrogen element that radius elementida halka yaalay tan ugu radius ka weyn waa argon the element in period 3 with the higher boiling point is sodium kuwan kale waa definitionka waxa waqti badan ku dhimana insha Allah casharkeena intaas nagu ogyahay waa mahadsantihiin